maanta iyo Minnesota maxaa cusub sida aad ku aragteen baraha bulshada waxa gobolka Minnesota ka socdo oo la qaban qaabiyay mudaharaad looga soo horjeedo xerta sheekha waa jeeda waa aragtaan si fiican baa u aragtaan anigoo ah madaxa xerta sheekha yaa mudaharaadkan soo qaban qaabiyay maxayse ka cabanayaan dadka cabanaya kooxdan fallaagada ah ayaa iyagu waxay xiriir dhow oo aad iyo aad u dhow ay la lahaayeen dadkii dhacay lacagtii raashinka carruurta yaa soo qaban qaabiyay oo wada mid waa mid alcoholic oo Canada degan iska dhaaf taa iyada xisaabta kuma jirto ila wadaaga okay isuga nimayo hayga boodina isuga ilmaad reyaalo hayga boodina waa idin soo wada nacla shaydaan ku yaale hayga boodina halkan waxa raaliga ahaadaya aad iyo inaan markii hore idin sii diyaariyay ahayd laakiin kama fursanayso in halkan ka soo saaro okay kooxdani waxa ay ka cabanayaan hogaamiyahoodii ugu weynaa ayayagan oo dhex jiifta federal prison ku dhex jirta okay waa tuma ayayagan yaasi soo abaabulay mudaharaadkan maanta ayayagan waka okay mudaharaadkan waxaa soo abaabulay درحي oo iyadu laba habeen xabsiga hanabinka jiifsatay Muna Abdullah Nuur oo iyaduna leh Youth Development Foundation ku dhacday lacag Tasha Community waa tuma xawa درحي waa taas saddex fiidoogan ku jira mid waa درحي midna waa booyadii xaarka midna waa ayayagan oo xabsiga ku jirta درحي laba habeen ayay soo xidhnay okay Hassan in adeero hal digniin oo yar baan ku siinaya halka digniin hadaad ku joogsan weydo ku balo garaynaya marka akoon kala soo furanaysa ku qasbanta waxay ka careysan yihiin kooxdaani waxa xabsiga federaalka dhex jiifta ayayagan oo iyadoo ahayd qofkii dhaca ugu badan geystay oo waliba xuquuqda dadka bilaadanka ku xadgudubtay sharcigana jabisay waa ku soo qabanaya habar yar sharcigana jabisay haddaba booyada xaarka oo aad iyo aad uga muraara dilaacday in ayayagan xabsi la dhigo xaawo dirxina laba habeen ku soo jirto iyaduna hatta ay u socoto iyada lafteedu iska sugo waa idin keenaya way socotaa ana taa idin huba meel fiican bay hawshu maraysaa daawada بشيكها هيا واركا سفي عن باوركتا سفي عن ايا وركتا فيديو ما بأباهنا يسمي البارود رياه اوكي مظاهرات كان وحاسوا بابولي كوح اي هوغامينسو ناق الكوليغا او كندا دغن او لا يراادو عاشق غدودو ولا شيء oo magaalada aan degan lana yiraahdo booyada xaarka oo ay aad iyo aad isku dhawaayeen ayayagan aanan idin tusi doono Give us an update on how the negotiations about our very funding
and our very decision making that we've been talking about and the things that we need. ayaga waxa wali xabsigii bay dhex jiiftaa waxaan rabaa inaan idinla wadaago haaway inaan idinla wadaago cadaynta kooxdan xiriirka ka dhaxeeyay iyaga iyo daahir dameer baan rabaa inaan idinla wadaago si fiican aadoo wey yes waa booyadii xaarka iyo canab cawad oo xabsi federal prison dhex jiifta ayagan iyo booyadii xaarka oo ay leedahay ayagan waxaan ahay wakiilka daahir calasow ee Minnesota ha ka soo saar daahir calasow ha ka soo saar daahir calasow ha ka soo saar ida baradii uu kugu soo bushkareynayay ba halka ku sii geysay iyo fiidooyadii guule qariir ka duubay ha ka soo saar daahir calasow marka la idinku celinaya indhiina ku aragtaan soo maaha kooxdan waxay ka calaysan yihiin xariga ay maanta federal prison ay dhex jiifto ayaga booyada xarka oo iyadoo haba yaraatee wax sharci aan wadanka Mareykanka ku lahayn haysata green card waxa ay fiidooga kula jirta waa islaantaas oo marka la geliyo magaceeda la arkayo in ay dambiilo weyn tahay federal prison ay dhex jiifto sababta ay waxaan u abaabulayeenna waxa weeyaan in aan laga hadlin arrimaha raashinka booyada xarku waxay kamid ahayd dadkii anfaca ku qabay arrinta marna maanta waxaan u quusgoynayaa dadka falaagada ah ee hawsha wada marna baxarta sheekhu kama aamusayaan indhahana ka laaban maayaan inay ilaaliyaan sharafta iyo dignitiga shacabka Soomaaliyeed ee Minnesota degan khudbadaydan maanta waxaan rabaa inaan ugu quusgooyo dhammaan tuugada maafiyada ah iyo doqomada iyo wixii dabada ka riixayaaba in aanay habeenna ku seexan maalina ku seexan in ay ka guuleystaan xarta sheekh iyaga oo beentooda iyo waxooda abaabulaya ma dhacaso marna ma yeelano inaanu ka aamusno in 10 qof oo wasakha ay ceebeeyaan shacabka Soomaaliyeed dambiile qofka fiidooga kula jira lacag dhacay dambiile waxa aan qofka fiidooga kula jira u doodaya ee dhahaya saaxiibtay ayaa xiran oo xabsiga la geeyay xeerta sheekhu marna kaba aamusaya lagama yaabo in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa xaqa kama xishoodo waaba dhacay mudaharaadkii xaqa kama xishoodo lagama yaabo in aan marna sida aanu bulshada Soomaaliyeed ugu adeegno ugu soo gudbino runta una sheegno wixii khaldan wixii saxna aan u sheegno ku taageerno qofka wanaagsanna aan taageerno ee community-ga wax u qabanaya qofka xun ee community-ga baabi'inayana aanu farta ku fiiqno lagama yaabo marna in aanu ka gaban wadanka Mareykanka waa wadankeeni dhalasho ina siiyay nolol bi ina siiyay waxbarasho ina siiyay opportunity badan bi ina siiyay maaha in loo geysto dhibaato in ay dhibaato lagu sameeyo marnaba looga gaban maayo mana naamusin karaan iskumana dayi karaan kooxahan falaagada ah habar alkooliga oo Canada fadhida iyo doqon la dhalatay oo halkan joogta iyo doqon maskaxda ka jiray oo qabri bay xalunta kaga xidhnaa marnaba tuugada arimahaani dabada kaba soo riixayaan lagaga gaban maayo Muno Cabdullaahi Nuur waa madaxa Youth
Development Foundation waxay ku dhacday lacag aad iyo aad u badan 9 bilood ayay sii deganayd section 8 ka markii ay dhacday lacagta dhacday ay sii isticmaalayso xaawo darxi waxa ay ka mid ahayd under contract kuwa hoose ee qandaraaska muna ka qaatay iyada iyo ninkeeda iyo ilmaheeda waxa soo kiisa waa ognahay waana la soconnaa booyada xaarku iyadu waa qof maskaxiyan jiran oo xanuunsan oo meel walba inay iska dhex boodo jecel waa sababta loogu bixiyay booyada xaarka ina aragsan ninka la yiraahdo oo isaguna xalay soo galiyay flyerska oo qolada mudaharaadka kamida isaga waa nin ka caraysan inay soo cayrisay islaantii in adeertay ahayd ee aragsan oo bisiisi banaanka u soo dhigtay hadba banaan cidla ii jifa meel wanaagsan buu ii joogaysan dhareeb isagu macna badan ma laha oo ninka aad aragteen ee isagoo qubaysanaya life ka soo gala waa ninka aad aragteen inta isagoo muslim oo Soomaaliya sunniya inta uu tagay baaran iyo meel dad joogan qomluud intuu dabadooda duubtay aha ma sha Allah oo dhiin iyo xaradi shacabka Soomaaliyeed ilaahi ii abuuray oo idin khalqay ayaa idin ku dhaarshay dadka noocaan ah maxaa ku qiyaasi lahaydeen isuga dadka noocaan intay bulshada soo fariistaan ayay waxay ku leeyihiin ummad baa rabnaa in aan wax u sheegno bal ilaahay baa idinku dhaarshay ninkaasi waxa uu tagay meel kafeeya nin qoomaluuda ayuu dabadiisii duubanaya uu leeyahay waxaan ilaaahdaa ma sha Allah okay Starbucks. Carlos. حاجة دمار بالصياد كشجاب سوق الصقناعي كشجاب يا وكان كل عرق وحاسب حيل هذا ما شاء الله بعد ما شاء الله يا كشجاب سمي سوق كيسك يا كويس سوق كيسك نسيت مراكز جماعة أنا واشدين وأنا واشدين مو غريزين كرجوست أب وحصا هنا أب أنا يا ولا شدين مو أوكي مركلة نسيت ستاربكس كارلوس حاجة دمار بالصياد كشجاب سوق الصقناعي كشجاب يا وكان كل عرق وحاسب حيل هذا ما شاء الله بعد ما شاء الله يا كشجاب سمي سوق كيسك يا كويس سوق كيسك نسيت مراكز جماعة أنا واشدين وأنا واشدين مو غريزين كرجوست أب وحصا هنا أب أنا يا ولا شدين مو maxaa aragteen indhihiina ku aragteen shacabka Soomaaliyeed dadka doonaya inay xirta sheekha jaalanji la galaan waa nooca Soomaaliya ilaahay xaq kama xishoodo waa qolo tuga qolo faasiqiina qolo maafiya qolo beenaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq kama xishoodo marna kama aamusno mudaharaad baa sheegaysa 20,000 oo mudaharaad haday keenan lafcad ayay toobin ku hayaan qof sharciga ka weyn ma jirto waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonahay in wax la iga qaadi karo oo Soomaali beenaale iga qaadi kara waxbayaraatay ayna jirin iska ilow sidaa darteed xerta sheekhu marna kama gabanayaan in ay runta sheegaan ummadda uga digaan waxa xun dhaqanka iyo diinteena islaamka ay ku hanuuniyaan sharciga wadankana la raaco marna kama ka aamusmin in la jabiyo wadanka sharciisa iyadoo la dhacayana in aanu ka aamusno America anaga waa wadankeena ma laga yaabo diinteena ayaa in farasa inaynu waxa xun aynu ka hadalno oo ka hadno ummadda laga wacdiyo waxa wanaagsan aynu raacno
diinteennu ma ogola xaaraan in wax la dhaco ma ogola been midna ma ogola ilaahay baan idinku dhaashay ummadda Soomaaliyeed shakhsigaas aragtaan oo aad idinna ku haysaan oo u wada jeedaan kala goosta ab waxaa haynaa bannaanka yaa wala shidin maho okay soo idinku celinaya kaniisinka Starbucks kala حاجة ما بتصير كشجار سوس عليك يا كشجار يا وكان كل عرق وحاسب حي هذا ما شاء الله بقى ما شاء الله يا كشجار شو اللي سويت كيسك يا كويس سويت كيسك نسيت مراكز جماعة أنا واشدين هنا ولو شدين مو غريزين كرقوست أب وحصا هنا أب أنك يا ولا شدين مو أيه محالين به إنك واركتان واددكاس ددك الدونية إن لغا آمسو واددك النوع عاسة واددك التوغة التاغيرية بويد حاركة صوفار لما فيديو iyo saddex video oo ay kula jirto ayay gaar oo federal prison ku jirta ayaa la hayaa already waa darna waa gudbin taageeraha ugu weyn waa xaddiina ku aragteen ayay gaar oo dhahasa daahir cala sooga Minnesota waa aniga daahir dameer waxa uu kamid ahaa kooxihii lacagta raashinka halkan ay ka dhacday ay wax ka siisay waxay xamar ugu dirtay lacag fara badan oo ay leedahay Cabdixakiin hal ugu soo dilo markay leedahay xamar hal ugu soo dilo fiidiyoyadaas ayaa ka mid ahaa okay waxaan eega kan balkan ila eeg ilaahay Allah hoognayay baanayay bal suu gacanta leeyahay eeg ilaahay ku dhaarshay Allah hoognayay baanayay ya ku celi Allah hoognayay baanayay yes daahir dameer hana abukar bula shaqaysan jiray daas waa wax waarun okay okay isuga ayagan ma ahayd iyadu qofka waxaan bixin jiray kooxdaana abaabul jirtay yes isuga maanta yaa la jooga dameer calasow ayay waxa u dirtay lacag badan ay leedahay Cabdixakiin hal ugu dilo ila daawada iyadoo dhahasa daahir calasow baan halkan ka salaah ka soo saara maanta yaa la jooga madaxana furan maanta madaxa ay furan waxa la jooga walaalkay guuleedaa tax boqortooyo aan leeyahay boqortooyadii kablalax laandeeraya adiguna madax baa tahay maadaama aad tahay hadalku kama soo bixi karo min hadal xitaa yaqaan maaha fiidiyodaas waa fiidiyooda maanta xareeyay islaanta doqonkan arkasaan waa hooyo run ahaantii ciyaal baa ay ka tagtay waa qof daa yani run ahaantii marka damiirkayga islaamnimo iyo Soomaalinimo iyo ehelnimo aan u noqdo wallahi waa ka naxaa laakiin yaa dhiiqada galiyay this person والله وبالله والله فيديوهاس هو فيديوهدا امتي كلو دhan waa la soo daayay maxaa loogu diiday damiinka illa waxa la yibartaas ku jira saay waliba state kala loo qaatay fiidiyohadaas waa fiidiyohada dhiiqada uu ku sii galiyay ila daawad isagu maanta fiyu iyo caan buu raadinay laakiin maanta maxaa ka raacay xagee ku dambeysay maanta yaa la jooga madaxana furan maanta madaxa ay furan waxa la jooga walaalkay guuleedaa tax boqortooyo aan leeyahay boqortooyadii kablalax laandeeraya adiguna madax baa tahay maadaama aad tahay shanta Soomaali love Somali people daahir calasow halkan ka salaamayna waan salaamayaa in adeerkay daahir Cabdulle Calasow ma sha Allah laandeerani Cabdulle Calasow ha ku soo saara maanta ayeeyo
daahir cabdulle calasow ha ku soo saara maanta inta hadduu joogi lahaa yurub uu guri qol ku xidhan yahay maahan inta hadduu joogi lahaa halka aad jiiftaan la geyn lahaa maanta ha ku soo saara maanta daahir cabdulle calasow ha ku soo saara maanta in adeerkay daahir cabdulle calasow maasha allah laandheeranimo cadow yuururana waxaan leeyahay saas ku dambe yes maanta waa isballansanay maanta walaashay meesha igu timid maanta oo dhan 2 saacadood sugayo maasha allah wuxuu yidhi walaashay waa isballansanuu yidhi maanta oo dhan 2 saacadood bay sugaysay kamuusan fakarin fiidoogaan maalintuu duubaya inuu geli doono xarunta surdoonka iyo kaydka ee xerta shiikha markhaati ma doonta maxay sugaysay maxay 2 saacadood kugu sugaysay bohosheedii buu qodaya isagu fiyuu buu raadinaya iyo inuu soo caabaxo iyo in la daawado iyo in la yidhaahdo xerta shiikhu jaalanje la galay maxaa jaalanje la geli kartaa gaadhi dhexdiisa caagad ku kaajisa magaaladan aad timaadaa jaar break buu samaysay islaamka markuu wax duuba intuu seef garayo markuu dhaqaaqa soo geliya waa tan iyadoo marka ay gacanta saa leedahay ilaahay wuxuu qadaray iyadii oo gacmaha saa ka ah inaan anigiyo suud xidhan aan saa u soo hor fadhiistay aan ka qosla yaa ilaahay qadaray ka sheekee markaasaa ilaahay wuxuu qadaray iyadiioo saa u sii xidhan in waraaqo kale loo dhiibay oo kuwana qabso okay lacagtii ay dhiibtay waa tan maalinta daawada قد راح يرسل فطوره يا مره بس هذا وحبي الله يسلمك هيا صع نوض شاكذا Please show me your face, Apple. هيا اوكي واكن جزيرة هوتيل بك شكينزا صحيح على الوجه هاي مقدشة شوكتا هوتيل جزيرة شوكتا لكن أنا هو كوش ميك إدانو ما تعرفته ميك باتهاي لا يبر كفردية وإسكا باشالي كرتا لكن ولو يربوك ببينه ما أنتنا وقتين ماشي كجرتا فدرال برسم بي كجرتا دارير كاني مركو فيديو كان دوباي kamuusan fakarin hooyadan islaanta ee khaldan haday maanta ku timaado islaan Soomaaliyeed oo khaldan ay ii timaado on arko markay ii timaado in waxan ay hadda sameynaysa uu hadhow against ku noqon doono wax ku soo jeesan doono oo noqon doonto waan qabanaya waxaan leeyahay because waxan waa kaaga waaya arag in ma badanahay George laakiin dareerku kamuusan fakarin fiidiyoyadaas aragteen iyo qaar kale badan oo hayo oo luqadda Ingiriisiga lagu soo turjumay ayaa la hor keenay meesha dadkii dhan markii damiinkii loo ogolaaday ka ku qoran newskan soo galiyay waxa la gabadhan iyada ah waa mid violence oo dagaal badan mana ilaalisa baa leeyahay sharciga dambiyo badan oo kale si filan way gashay waxay isku dayday xitaa dhaqaale ku bixisay ay dhacday lacagtay dhacday bay waxay ku bixisay inay ku diyaariso in qof la dilo qofkaasina uu yahay ani waxa la soo qaatay video dameer cali soo dhahaya Cabdi Xakiin waxa uu joogaa Nairobi hala soo salaad
dameer cali soo lacag badan la kuga cun kan dareerka amarka waa nin dhiman oo maskaxda wax uga dhiman yihiin tan booyada la yiraahdaana iyadii baaba teedu u dhiman taa alkoolada cabtay kala joogtay iyada warkeeda ma naga dhaaf iyada caawa barnaamij kale caawa iyadoo la jeebaynayo ta kanada joogta caawa waxaan idin keenayaa iyadoo la jeebaynayo boolis xidhaya oo intay khamri ka dheertay cunug yeeray gaanka ee guriga jooga gabdho kale ku dirtay dadkan aagtay kulli waa dadkaas wada criminalka ummadda Soomaaliyeed waxaan ay shalay abaabulayeen bixinayeen ay lahaayeen mudaharaad kale waa waxa Soomaaliyeed booyadu waa saaxiibkii koowaad ee habarta ku jirta federal prison saaxiibkii koowaad ayaga marka waa isku lamaatay insha Allah almuhiim barnaamijku waa ka baxaya caawan barnaamij fiican inoo haya Mrs. Ellen oo ah booyada xaarka walaashay oo la jeebaynayo oo la xidhayo booliska Canada ay xidhayaan ayaan caawa ka sheekeyn doonaa fiidiyogaas wuxuu yahay ugu dambeyn kooxaha shirkan soo abaabulay mudaharaadkan waa in aragsan oo ay soo cayrisay banaanka soo dhigtay islaantii in adeertay ahayd aragsan waa dhareed oo aad garanaysaan oo isagoo bahashii ragga duubanayo dhahaya ma sha Allah naclatullah ala alqamlud waa booyada xaarka Soomaalidu waxay yiraahdaan qof cunaha la qabtay ama dhuus ama xaar anigu waxaan idin arkaa inaad tiin masaakiin galgalanaysa la gowracani baa leeyahay geed kama waarto mudaharaad baa sheegaysaa 20 kuna mudaharaad keena horaan idinku sheegay waxaan idin dhahay waxba haygu karaama seegina habaar laygu kari waayay